gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose xagga amniga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun marka hore waxaan ka tacsiyadeynaynaa runtii dhacdadan xanuunka badan ee ku dhacday dadkan shacabka ah ee beeraleyda ah ee iyagoo jooga guryahoodii lagu weeraray intaa kadib tacsidan kadib ka maamul ahaan annagu waxaan caddaynaynaa dadkaas la laayey inaanay ahayn shabaab inaanay ahayn dad oo dhibaato waday inay ahaayeen dad shacab ah oo beertoodii loogu tegey laguna laayey intaan caddaynaynaa waa intaa ma aha beel keliya soomaali oo dhan bay isugu jiraan waa dad dulmalayaal ah waa dad lagu laayey runtii si khalad ah oo gardarro ah oo caddaan ah ciddii falkaa fulisay iyada ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta haddii alla idmo waana lala xisaabtamayaa biidnillaah haddana waxaan ku wareejinayaa odayaashan beelaha soomaaliyeed ka jooga oo dhibanayaasha odayaasha u ah in ay ka hadlaan arrinta waa la yaqaanaa ciidamada meesha joogay waxay ahaayeen ciidamada caddaanka ee bangraft ayay ahaayeen ama shirkad ha ahaadeen ama ciidan dawla ha ahaadeen laakiin cidda falka fulisay waa bangraft waa ciidamadii beriire ku sugnaa dagaal maaha waddo maaha yacnii waa dad goobtii ay joogeen qaarkoodna jiifeen qaarkoodna soo jeedeen loogu tegoo lagu laayay marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkan ay guryahooda ka dhinteen waa dad Soomaaliyeed oo si gardarro ah lagu laayay si qaas waxaan ugu tacsiyeenaynaa dadkii guryahooda ay ka dhinteen waxaan kale uga tacsiyeenayaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaatada naxdinta leh loo geystay shacabkoodii beeraleyda ah waxaan halkan ka sheegaynaa dadkan halka meedkoodu yaallo oo ah 10 qof si gardarro ayaa loogu laayay beerahoodii waxay ahayn dad beeraley ah waxay ahayn dad xoogsataa waxaa laayay ciidamo sababta ay u laayeen aanan garanayn dalka ma ahan dal la heesto dalku dawladda ka dhisan waxaan leenahay baarlamaan waxaan leenahay xukuumad gole wasiiro waxaan leenahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ciidamada ay adeegsadaan oo kaashadaan oo dawladda Soomaaliya amni ay noo sugayaan ay u hayaan oo u kaashadaan waxay horay maalin kasta laayaan dadka Soomaaliyeed ciidamada ama Soomaaliya kamida intaasoo qaybood oo diiwaanka ku jirta oo lahaayo oo og yihiin oo hayaan Soomaaliyeed oo baabuur saaran oo caana gadanaya oo aroosaya ay laayeen hadda dhacdada ugu dambayday oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmeynayay ciidamada Soomaaliya xoog gacanta u siinayay oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad Soomaaliyeed oo caruur isugu jira iyo odayaal oo beeraley ah oo aan waxba galabsan ayay laayeen waxaan rabnaa inaan dawladda Soomaaliyeed u sheegno waxaan rabnaa inaan ciidamada AMISOM u sheegno waxaan rabnaa kuwa bangraft leeyahay caddaanka inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed uma dul qaadan karo maalin kasta inaad laydaan inaad tiraahaan waxbaan idin sugaynaa ee dhacda shaqadiinu noqoto istiriya meeqa ka dhimatay kuwa aan la diriraynaa hoon cadawga u naqan meeqay dilaan annagana meeqaan dilay saasaan u qaadanayno uma qaadanayno inaad maslaxad noo haydaan mana u qaadanayno inaad maslaxad nooga shaqaynaysaan waxaan rabnaa inaan lagu kahdoomin wixii hadda ka dambeeya dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dalka dawlad ayaga u ah baarlamaan ayaa jooga shacabkii Soomaaliyeed waa la dhameeyay meesha gadaashayda 10 qof oo waxa yaala caruur 3 caruur oo saqiira ka mid tahay waad u jeediin waxaan rabnaa in arrinta tilaab laga qaado ma duugayno ma xabaalayno faranjeeraan gelinayna ilaaha arrintaad ciddii geysatay ay qaadato mas'uuliyadda dhibaatada halkaa ka dhacday oo meel la saaro ma duugayno ma la duugayo
waxaa loo bartay dadka soomaalida in la laayo laga tago wixii maanta ka dambeeya waxaan rabnaa lama lay doono dadka soomaalida xisaabaa noo furan faranjeeraan ku aruurinaynaa dawladda soomaaliyeed ilaa ay soo taagto ciddii mas-uuliyaddan lahayd oo xaquuqdan bixi lahayd oo qaladkan gashay ilaa la soo taagana lama xabaalayo war soo saas ma aha lama xabaalayo waxaan rabnaa xaquuqdooda dembigan ciddii gashay in lagu qaado ma ahayn dad dagaalamaya ma beeraley bay ahaayeen in lagu xalaalaysto dadkeenna beeray dhex joogeen waa ku kahdoonnay gaalkacyay ka dhacday hadda ka hor ka dhacdoo lagu laayey maalin kasta dad soomaaliyeed oo ujeeddadooda aynaan garanayn inay dadkeenna iyo shacabkeenna ku hoggaanshaan ciidamo adnebiya oon kala aqoon dadka soomaaliyeed oo inta beer u sheegaan ay yidhaahaan cadow baa halkan jooga uma dulqaadanayno maalin kasta inna lagu masabito ciidamada adnebiga uma dulqaadanayno waa dhacdadii saddexaad oo lagu yidhi waa ciidamo cadow ah halkan fadhiya marka waxaan rabnaa arrintaa iyada ah wixii maanta ka dambeeya wax loo dulqaadanayo ma ahan meydkana lama xabaalayo ilaa xaquuqdoodii meel la saaro aadaad u mahadsan tihiin waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan uga tacsiyeenayo xasuuqa foosha xun oo ka dhacay xalay tuulada Bariire beer ku dhow oo lagu xasuuqay ummad Soomaaliyeed oo waayeel iyo saqayro iyo dhalinyaraba isugu jirta dadkaasoo hadda meydadkooda halkan yaaliin oo dad Soomaaliyeed ah gacmaha gardarrada lagu geystay oo dadka lagu xasuuqay waxa iska lahaa ciidamo wata calaamadda Mareykanka laakiin waxaan leenahay mas'uuliyadda arrintaani waxay u taallaa dawladda Soomaaliya maxaa yeelay dal xor ah waxa dadkan ku dhacay kama dhacaan in ciidan ajnabi yihi degmaduu rabo iyo tuuladuu rabo iyo beertuu rabo cidduu doono ku dilo kama dhacdo dal xora wax dal xora ka dhaca maahan dawladda Soomaaliyana dalka in la haysto ma sheegina dalku inuu madax bannaan yahay iyaduna dawlad u tahay noo sheegtay mas'uuliyadda arrintan 85% waxa qaadanaysa ama 95 dawladda Soomaaliya waxaana lagu fadhiyaa ayada meydkuna meeshuu yaallaa sida odayaashu u sheegeenna ma laga qaadayo mana la xabaalayo ilaa jawaab ummadda Soomaaliyeed gardarradan iyo xasuuqaani ku dhacay qancisa ay ka timaado dawladda Soomaaliya waxaan leenahay dhagihiina fura ummadda Soomaaliyeedna adinka idinkula xisaabtamaysa waxa meesha ka dhacay aakhire iyo adduunna adinka la idinkula xisaabtamaya labadaba markee mas'uuliyad baad u qaadeen ummaddan waxa loogu xadgudbayna waa dadka aad mas'uuliyadda u qaadeen cidda ku xadgudubtana waa cidda adinku keenteen oo kaashanayseen waxaan leenahay arrintaas adinka idin taallaa madaxda qaranka ha maqleen adinka jawaabta la idinka sugayaa meydkuna bannaanka idin yaallaa Mareykanka safaaradooda waxaan leenahay gardarradaas aad samaynaysaan waxba kuma gaaraysaan iska daaya waana la gaarsiiyay sida aan ognahay safaaradooda hadalka intaasaan ku soo gabagabeynaya anigu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo ku dhintay sabab la'aanta waxa weeye ilaahay weyna waaxid ah naga samar siiyo bedelkooda qeyr qabana Allah na siiyo inta kadib
gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose xagga amniga innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka hore waxaan ka tacsiyadaynaynaa runtii dhacdadan xanuunka badan ee ku dhacday dadkan shacabka ah ee beeralayda ah ee iyagoo jooga guryahoodii lagu weeraray intaa kadib tacsidan kadib ka maamul ahaan annagu waxaan caddaynaynaa dadkaas la laayey inaanay ahayn shabaab inaanay ahayn dad oo dhibaato waday inay ahaayeen dad shacab ah oo beertoodii loogu tegey laguna laayey intaan caddaynaynaa waa intaa ma aha beel keliya soomaali oo dhan bay isugu jiraan waa dad dulmalayaal ah waa dad lagu laayey runtii si khalad ah oo gardarro ah oo caddaan ah ciddii falkaa fulisay iyada ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta haddii alla idmo waana lala xisaabtamayaa biidnillaah haddana waxaan ku wareejinayaa odayaashan beelaha soomaaliyeed ka jooga oo dhibanayaasha odayaasha u ah in ay ka hadlaan arrinta waa la yaqaanaa ciidamada meesha joogay waxay ahaayeen ciidamada caddaanka ee bangraft ayay ahaayeen ama shirkad ha ahaadeen ama ciidan dowla ha ahaadeen laakiin cidda falka fulisay waa bangraft waa ciidamadii beriire ku sugnaa dagaal maaha waddo maaha yacnii waa dad goobtii ay joogeen qaarkoodna jiifeen qaarkoodna soo jeedeen loogu tegoo lagu laayay marka hore waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun dadkan ay guryahooda ka dhinteen waa dad Soomaaliyeed oo si gardarro ah lagu laayay si qaas waxaan ugu tacsiyeenaynaa dadkii guryahooda ay ka dhinteen waxaan kale uga tacsiyeenayaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaatadan naxdinta leh loo geystay shacabkoodii beeralayda ah waxaan halkan ka sheegaynaa dadkan halkaa meydkoodu yaallo oo ah 10 qof si gardarro ayaa loogu laayay beerahoodii waxay ahaayeen dad beeraley ah waxay ahaayeen dad xoogsataa waxaa laayay ciidamo sababta ay u laayeen aanan garanayn dalka ma ahan dal la haysto dalku dawladda ka dhisan waxaan leenahay baarlamaan waxaan leenahay xukuumad gole wasiiro waxaan leenahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ciidamada ay adeegsadaan oo kaashadaan oo dawladda Soomaaliya amni ay noo sugayaan ay u hayaan oo u kaashadaan waxay horay maalin kasta laayaan dadka Soomaaliyeed ciidamada ama Soomaaliya kamida intaasoo qaybood oo diiwaanka ku jirta oo la haayo oo og yihiin oo hayaan Soomaaliyeed oo baabuur saaran oo caana gadanaya oo aroosaya ay laayeen hadda dhacdada ugu dambeeyay oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmeynayay ciidamada Soomaaliya xoog gacanta u siinayay oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad Soomaaliyeed oo caruur isugu jira iyo odayaal oo beeraley ah oo aan waxba galabsan ayay laayeen waxaan rabnaa inaan dawladda Soomaaliyeed u sheegno waxaan rabnaa inaan ciidamada AMISOM u sheegno waxaan rabnaa kuwa bangraft leeyahay caddaanka inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed uma dul qaadan karo maalin kasta inaad laydaan inaad tiraahaan waxbaan idin sugaynaa ee dhacdada shaqadiinu noqoto istiriya meeqa ka dhimatay kuwa aan la diriraynaa oo cadawga u naqan meeqay dilaan annagana meeqaan dilay saasaan u qaadanayna uma qaadanayno inaad maslaxad noo haydaan mana u qaadanayno inaad maslaxad nooga shaqaynaysaan waxaan rabnaa inaan lagu kahdoomin wixii hadda ka dambeeya dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dalka dawlad ayaga u ah baarlamaan ayaa jooga shacabkii Soomaaliyeed waa la dhameeyay meesha gadaasheeda 10 qof oo waxa yaala caruur 3 caruur oo saqiira ka mid tahay waad u jeediin waxaan rabnaa in arrinta tilaab laga qaado ma duugayno ma xabaalayno faranjeeraan gelinayna ilaaha arrintaad ciddii geysatay ay qaadato mas'uuliyadda dhibaatada halkaa ka dhacday oo meel la saaro ma duugayno ma la duugayo waxaa loo bartay dadka Soomaaliyeed in la laayo laga tago wixii maanta ka dambeeya
waxaan rabnaa lama lay doono dadka Soomaaliyeed xisaabaan noo furan faranjeeraan ku aruurinaynaa dawladda Soomaaliyeed ilaa ay soo taagto cidii mas'uuliyaddan lahayd oo xuquuqdan bixi lahayd oo qaladkan gashay ilaa la soo taagana lama xabaalayo war soo saas maaha lama xabaalayo waxaan rabnaa xuquuqdooda dambigan cidii gashay in lagu qaado ma ahayn dad dagaalamaya ma beeraley bay ahaayeen in lagu xalaalaysto dadkeenna beeray dhex joogeen waa ku kahdoonnay gaalkacyay ka dhacday hadda ka hor ka dhacdoo lagu laayay maalin kasta dad Soomaaliyeed oo ujeeddadooda aynaan garanayn inay dadkeenna iyo shacabkeenna ku hogaanshaan ciidamo adnabiya oon kala aqoon dadka Soomaaliyeed oo inta beer u sheegaan ay yidhaahaan cadow baa halkan jooga uma dulqaadanayno maalin kasta in lagu masabito ciidamada adnabiga uma dulqaadanayno waa dhacdadii saddexaad oo lagu yiri waa ciidamo cadow ah halkan fadhiya marka waxaan rabnaa arrinta iyada ah wixii maanta ka dambeeya wax loo dulqaadanayo maahan meedkana lama xabaalayo ilaa xuquuqdoodii meel la saaro aadaad u mahadsantihiin ducuun waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan uga tacsiyeenayo xasuuqa foosha xun oo ka dhacay xalay tuulada Bariire beer ku dhow oo lagu xasuuqay ummad Soomaaliyeed oo waayeel iyo saqiiro iyo dhalinyaraba isugu jirta dadkaasoo hadda meydadkoodu halkan yaaliin oo dad Soomaaliyeed ah gacmaha gardarrada lagu geystay oo dadka lagu xasuuqay waxa iska lahaa ciidamo wata calaamadda Mareykanka laakiin waxaan leenahay mas'uuliyadda arrintaani waxay u taallaa dawladda Soomaaliya maxaa yeelay dal xor ah waxa dadkan ku dhacay kama dhacaan in ciidan ajnabi yihi degmaduu rabo iyo tuuladuu rabo iyo beertuu rabo cidduu doono ku dilo kama dhacdo dal xora wax dal xora ka dhaca maahan dawladda Soomaaliyana dalka in la haysto ma sheegina dalku inuu madax bannaan yahay iyaduna dawlad u tahay noo sheegtay mas'uuliyadda arrintan 85% waxa qaadanaysa ama 95 dawladda Soomaaliya waxaana lagu fadhiyaa ayada meydkuna meeshuu yaalaa sida odayaashu u sheegeenna ma laga qaadayo mana la xabaalayo ilaa jawaab ummadda Soomaaliyeed gardarradan iyo xasuuqaani ku dhacay qancisa ay ka timaado dawladda Soomaaliya waxaan leenahay dhagihiina fura ummadda Soomaaliyeedna adinka idin kula xisaabtamaysa waxa meesha ka dhacay aakhire iyo adduunna adinka la idin kula xisaabtamaya labadaba markay mas'uuliyad baad u qaadeen ummadan waxa loogu xadgudbayna waa dadka aad mas'uuliyadda u qaadeen cidda ku xadgudubtana waa cidda adinku keenteen oo kaashanayseen waxaan leenahay arrintaas adinka idin taala madaxda qaranka ha maqleen adinka jawaabta la idinka sugayaa meydkuna bannaanka idin yaala Mareykanka safaaradooda waxaan leenahay gardarradaas aad samaynaysaan waxba kuma gaaraysaan iska daaya waana la gaarsiiyay sida aan ognahay safaaradooda hadalka intaasaan ku soo gabagabanayaa anigu salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh oo ku dhintay sabab la'aanta waxa weeye ilaahay weyna waaxid ah naga samar siiyo bedelkooda qeyr qabana Allah na siiyo inta kadib aniga magacaygu uga
gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeelle hoose xagga amniga innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka hore waxaan ka tacsiyadaynaynaa runtii dhacdadan xanuunka badan ee ku dhacday dadkan shacabka ah ee beeralayda ah ee iyagoo jooga guryahoodii lagu weeraray intaa kadib tacsidan kadib ka maamul ahaan annagu waxaan caddaynaynaa dadkaas la laayey inaanay ahayn shabaab inaanay ahayn dad oo dhibaato waday inay ahaayeen dad shacab ah oo beertoodii loogu tegey laguna laayey intaan caddaynaynaa waa intaa ma aha beel keliya soomaali oo dhan bay isugu jiraan waa dad dulmalayaal ah waa dad lagu laayey runtii si khalad ah oo gardarro ah oo caddaan ah ciddii falkaa fulisay iyada ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta haddii alla idmo waana lala xisaabtamayaa biidnillaah haddana waxaan ku wareejinayaa odayaashan beelaha soomaaliyeed ka jooga oo dhibanayaasha odayaasha u ah in ay ka hadlaan arrinta waa la yaqaanaa ciidamada meesha joogay waxay ahaayeen ciidamada caddaanka ee bangraft ayay ahaayeen ama shirkad ha ahaadeen ama ciidan dowla ha ahaadeen laakiin cidda falka fulisay waa bangraft waa ciidamadii beriire ku sugnaa dagaal maaha waddo maaha yacnii waa dad goobtii ay joogeen qaarkoodna jiifeen qaarkoodna soo jeedeen loogu tegoo lagu laayay marka hore waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun dadkan ay guryahooda ka dhinteen waa dad Soomaaliyeed oo si gardarro ah lagu laayay si qaas waxaan ugu tacsiyeenaynaa dadkii guryahooda ay ka dhinteen waxaan kaloo uga tacsiyeenayaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaatada naxdinta leh loo geystay shacabkoodii beeralayda ah waxaan halkan ka sheegaynaa dadkan halkaa meydkoodu yaallo oo ah 10 qof si gardarro ayaa loogu laayay beerahoodii waxay ahaayeen dad beeraley ah waxay ahaayeen dad xoogsataa waxaa laayay ciidamo sababta ay u laayeen aanan garanayn dalka ma ahan dal la haysto dalku dawladda ka dhisan waxaan leenahay baarlamaan waxaan leenahay xukuumad gole wasiiro waxaan leenahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ciidamada ay adeegsadaan oo kaashadaan oo dawladda Soomaaliya amni ay noo sugayaan ay u hayaan oo u kaashadaan waxay horay maalin kasta laayaan dadka Soomaaliyeed ciidamada ama Soomaaliya kamida intaasoo qaybood oo diiwaanka ku jirta oo la haayo oo og yihiin oo hayaan Soomaaliyeed oo baabuur saaran oo caana gadanaya oo aroosaya ay laayeen hadda dhacdada ugu dambayday oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmeynayay ciidamada Soomaaliya xoog gacanta u siinayay oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad Soomaaliyeed oo caruur isugu jira iyo odayaal oo beeraley ah oo aan waxba galabsan ayay laayeen waxaan rabnaa inaan dawladda Soomaaliyeed u sheegno waxaan rabnaa inaan ciidamada amisom u sheegno waxaan rabnaa kuwa bangraft leeyahay caddaanka inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed uma dul qaadan karo maalin kasta inaad laydaan inaad tiraahaan waxbaan idin sugaynaa ee dhacda shaqadiinu noqoto istiriya meeqa ka dhimatay kuwa aan la diriraynaa oo cadawga u naqan meeqay dilaan annagana meeqaan dilay saasaan u qaadanayna uma qaadanayno inaad maslaxad noo haydaan mana u qaadanayno inaad maslaxad nooga shaqaynaysaan waxaan rabnaa inaan lagu kahdoomin wixii hadda ka dambeeya dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dalka dawlad ayaga u ah baarlamaan ayaa jooga shacabkii Soomaaliyeed waa la dhameeyay meesha gadaasheeda 10 qof oo waxa yaala caruur 3 caruur oo saqiira ka mid tahay waad u jeediin waxaan rabnaa in arrinta tilaab laga qaado ma duugayno ma xabaalayno faranjeeraan gelinayna ilaaha arrintaad ciddii geysatay ay qaadato mas'uuliyadda dhibaatada halkaa ka dhacday oo meel la saaro ma duugayno mana la duugayo waxaa loo bartay dadka Soomaaliyeed in la laayo laga tago wixii maanta ka dambeeya
waxaan rabnaa lama lay doono dadka Soomaaliyeed xisaabaan noo furan faranjeeran ku aruurinaynaa dawladda Soomaaliyeed ilaa ay soo taagto cidii mas'uuliyaddan lahayd oo xuquuqdan bixi lahayd oo qaladkan gashay ilaa la soo taagana lama xabaalayo war soo saas maaha lama xabaalayo waxaan rabnaa xuquuqdooda dambigan cidii gashay in lagu qaado ma ahayn dad dagaalamaya ma beeraley bay ahaayeen in lagu xalaalaysto dadkeenna beeray dhex joogeen waa ku kahdoonnay gaalkacyay ka dhacday hadda koor ka dhacdoo lagu laayay maalin kasta dad Soomaaliyeed oo ujeeddadooda aynaan garanayn inay dadkeenna iyo shacabkeenna ku hogaanshaan ciidamo ajnabiya oo kala aqoon dadka Soomaaliyeed oo inta beer u sheegaan ay yiraahdaan cadow baa halkaan jooga uma dul qaadanayno maalin kasta in lagu masabito ciidamada ajnabiga uma dul qaadanayno waa dhacdadii saddexaad oo lagu yiri waa ciidamo cadow ah halkaan fadhiya marka waxaan rabnaa arrinta ayada ah wixii maanta ka dambeeya wax loo dul qaadanayo maahan meedkana lama xabaalayo ilaa xuquuqdoodii meel la saaro aadaad u mahadsantihiin ducuun waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan uga tacsiyeenayo xasuuqa foosha xun oo ka dhacay xalay tuulada Bariire beer ku dhow oo lagu xasuuqay ummad Soomaaliyeed oo waayeel iyo saqiiro iyo dhalinyaraba isugu jirta dadkaasoo hadda meydadkooda halkaan yaaliin oo dad Soomaaliyeed ah gacmaha gardarrada lagu geystay oo dadka lagu xasuuqay waxa iska lahaa ciidamo wata calaamadda Mareykanka laakiin waxaan leenahay mas'uuliyadda arrintaani waxay u taallaa dawladda Soomaaliya maxaa yeelay dal xor ah waxa dadkan ku dhacay kama dhacaan in ciidan ajnabi yihi degmaduu rabo iyo tuuladuu rabo iyo beertuu rabo cidduu doono ku dilo kama dhacdo dal xora wax dal xora ka dhaca maahan dawladda Soomaaliyana dalka in la haysto ma sheegin dalku inuu madax bannaan yahay iyaduna dawlad u tahay noo sheegtay mas'uuliyadda arrintan 85% waxa qaadanaysa ama 95 dawladda Soomaaliya waxaana lagu fadhiyaa ayada meydkuna meeshuu yaalaa sida odayaashu u sheegeenna ma laga qaadayo mana la xabaalayo ilaa jawaab ummadda Soomaaliyeed gardarradan iyo xasuuqaani ku dhacay qancisa ay ka timaado dawladda Soomaaliya waxaan leenahay dhagihiina fura ummadda Soomaaliyeedna adinka idin kula xisaabtamaysa waxa meesha ka dhacay aakhire iyo adduunna adinka la idin kula xisaabtamaya labadaba markee mas'uuliyad baad u qaadeen ummadan waxa loogu xadgudbana waa dadka aad mas'uuliyadda u qaadeen cidda ku xadgudubtana waa cidda adinku keenteen oo kaashanayseen waxaan leenahay arrintaas adinka idin taala madaxda qaranka ha maqleen adinka jawaabta la idinka sugayaa meydkuna bannaanka idin yaala Mareykanka safaaradooda waxaan leenahay gardarradaas aad samaynaysaan waxba kuma gaaraysaan iska daaya waana la gaarsiiyay sida aan ognahay safaaradooda hadalka intaasaan ku soo gabagabeynaya anigu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh oo ku dhintay sabab la'aanta waxa weeye ilaahay weyna waaxid ah naga samar siiyo bedelkooda qeyr qabana allah na siiyo inta kadib aniga magacaygu ugaas gargaare bawayo qofku doonu geliyaa gargaare bawayo qofku doonu geliyay anagu yakuma raadiyo iyo gogolacageede golaabtanu ajeedo iyo geysana barwe
gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose xagga amniga innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun marka hore waxaan ka tacsiyadaynaynaa runtii dhacdadan xanuunka badan ee ku dhacday dadkan shacabka ah ee beeralayda ah ee iyagoo jooga guryahoodii lagu weeraray intaa kadib tacsidan kadib ka maamul ahaan annagu waxaan caddaynaynaa dadkaas la laayey inaanay ahayn shabaab inaanay ahayn dad oo dhibaato waday inay ahaayeen dad shacab ah oo beertoodii loogu tegey laguna laayey intaan caddaynaynaa waa intaa ma aha beel keliya soomaali oo dhan bay isugu jiraan waa dad dulmalayaal ah waa dad lagu laayey runtii si khalad ah oo gardarro ah oo caddaan ah ciddii falkaa fulisay iyada ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta haddii alla idmo waana lala xisaabtamayaa biidnillaah haddana waxaan ku wareejinayaa odayaashan beelaha soomaaliyeed ka jooga oo dhibanayaasha odayaasha u ah in ay ka hadlaan arrinta waa la yaqaanaa ciidamada meesha joogay waxay ahaayeen ciidamada caddaanka ee bangraft ayay ahaayeen ama shirkad ha ahaadeen ama ciidan dowla ha ahaadeen laakiin cidda falka fulisay waa bangraft waa ciidamadii beriire ku sugnaa dagaal maaha waddo maaha yacnii waa dad goobtii ay joogeen qaarkoodna jiifeen qaarkoodna soo jeedeen loogu tegoo lagu laayay marka hore waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun dadkan ay guryahooda ka dhinteen waa dad Soomaaliyeed oo si gardarro ah lagu laayay si qaas waxaan ugu tacsiyeenaynaa dadkii guryahooda ay ka dhinteen waxaan kale uga tacsiyeenayaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaatada naxdinta leh loo geystay shacabkoodii beeralayda ah waxaan halkan ka sheegaynaa dadkan halka meedkoodu yaallo oo ah 10 qof si gardarro ayaa loogu laayay beerahoodii waxay ahaayeen dad beeraley ah waxay ahaayeen dad xoogsataa waxaa laayay ciidamo sababta ay u laayeen aanan garanayn dalka ma ahan dal la heesto dalku dawladda ka dhisan waxaan leenahay baarlamaan waxaan leenahay xukuumad gole wasiiro waxaan leenahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ciidamada ay adeegsadaan oo kaashadaan oo dawladda Soomaaliya amni ay noo sugayaan ay u hayaan oo u kaashadaan waxay horay maalin kasta laayaan dadka Soomaaliyeed ciidamada ama Soomaaliya kamida intaasoo qaybood oo diiwaanka ku jirta oo lahaayo oo og yihiin oo hayaan Soomaaliyeed oo baabuur saaran oo caana gadanaya oo aroosaya ay laayeen hadda dhacdada ugu dambayday oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmeynayay ciidamada Soomaaliya xoog gacanta u siinayay oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad Soomaaliyeed oo caruur isugu jira iyo odayaal oo beeraley ah oo aan waxba galabsan ayay laayeen waxaan rabnaa inaan dawladda Soomaaliyeed u sheegno waxaan rabnaa inaan ciidamada AMISOM u sheegno waxaan rabnaa kuwa bangraft leeyahay caddaanka inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed uma dul qaadan karo maalin kasta inaad laydaan inaad tiraahaan waxbaan idin sugaynaa ee dhacda shaqadiinu noqoto istiriya meeqa ka dhimatay kuwa aan la diriraynaa hoon cadawga u naqan meeqay dilaan annagana meeqaan dilnay saasaan u qaadanayno uma qaadanayno inaad maslaxad noo haydaan mana u qaadanayno inaad maslaxad nooga shaqaynaysaan waxaan rabnaa inaan lagu kahdoomin wixii hadda ka dambeeya dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dalka dawlad ayaga u ah baarlamaan ayaa jooga shacabkii Soomaaliyeed waa la dhameeyay meesha gadaashayda 10 qof oo waxa yaala caruur 3 caruur oo saqiira ka mid tahay waad u jeediin waxaan rabnaa in arrinta tilaab laga qaado ma duugayno ma xabaalayno faranjeeraan gelinayna ilaaha arrintaad ciddii geysatay ay qaadato mas'uuliyadda dhibaatada halka ka dhacday oo meel la saaro
ma duugayno mana la duugayo waxaa loo bartay dadka soomaalida in la laayo laga tago wixii maanta ka dambeeya waxaan rabnaa lama lay doono dadka soomaalida xisaabaa noo furan faranjeeraan ku aruurinaynaa dawladda soomaaliyeed ilaa ay soo taagto ciddii mas-uuliyaddan lahayd oo xaquuqdan bixi lahayd oo qaladkan gashay ilaa la soo taagana lama xabaalayo war soo saas ma aha lama xabaalayo waxaan rabnaa xaquuqdooda dembigan ciddii gashay in lagu qaado ma ahayn dad dagaalamaya ma beeraley bay ahaayeen in lagu xalaalaysto dadkeenna beeray dhex joogeen waa ku kahdoonnay gaalkacyay ka dhacday hadda ka hor ka dhacdoo lagu laayay maalin kasta dad soomaaliyeed oo ujeeddadooda aynaan garanayn inay dadkeenna iyo shacabkeenna ku hoggaanshaan ciidamo adnebiya oon kala aqoon dadka soomaaliyeed oo inta beer u sheegaan ay yidhaahaan cadow baa halkan jooga uma dulqaadanayno maalin kasta inna lagu masabito ciidamada adnebiga uma dulqaadanayno waa dhacdadii saddexaad oo lagu yidhi waa ciidamo cadow ah halkan fadhiya marka waxaan rabnaa arrintaa iyada ah wixii maanta ka dambeeya wax loo dulqaadanayo ma ahan meydkana lama xabaalayo ilaa xaquuqdoodii meel la saaro aadaad u mahadsan tihiin waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan uga tacsiyeenayo xasuuqa foosha xun oo ka dhacay xalay tuulada Bariire beer ku dhow oo lagu xasuuqay ummad Soomaaliyeed oo waayeel iyo saqiiro iyo dhalinyaraba isugu jirta dadkaasoo hadda meydadkooda halkan yaaliin oo dad Soomaaliyeed ah gacmaha gardarrada lagu geystay oo dadka lagu xasuuqay waxa iska lahaa ciidamo wata calaamadda Mareykanka laakiin waxaan leenahay mas'uuliyadda arrintaani waxay u taallaa dawladda Soomaaliya maxaa yeelay dal xor ah waxa dadkan ku dhacay kama dhacaan in ciidan ajnabi yihi degmaduu rabo iyo tuuladuu rabo iyo beertuu rabo cidduu doono ku dilo kama dhacdo dal xora wax dal xora ka dhaca maahan dawladda Soomaaliyana dalka in la haysto ma sheegin dalku inuu madax bannaan yahay iyaduna dawlad u tahay noo sheegtay mas'uuliyadda arrintan 85% waxa qaadanaysa ama 95 dawladda Soomaaliya waxaana lagu fadhiyaa ayada meydkuna meeshuu yaallaa sida odayaashu u sheegeenna ma laga qaadayo mana la xabaalayo ilaa jawaab ummadda Soomaaliyeed gardarradan iyo xasuuqaani ku dhacay qancisa ay ka timaado dawladda Soomaaliya waxaan leenahay dhagihiina fura ummadda Soomaaliyeedna adinka idin kula xisaabtamaysa waxa meesha ka dhacay aakhire iyo adduunna adinka la idin kula xisaabtamaya labadaba markee mas'uuliyad baad u qaadeen ummaddan waxa loogu xadgudbayna waa dadka aad mas'uuliyadda u qaadeen cidda ku xadgudubtana waa cidda adinku keenteen oo kaashanayseen waxaan leenahay arrintaas adinka idin taallaa madaxda qaranka ha maqleen adinka jawaabta la idinka sugayaa meydkuna bannaanka idin yaallaa Mareykanka safaaradooda waxaan leenahay gardarradaas aad samaynaysaan waxba kuma gaaraysaan iska daaya waana la gaarsiiyay sida aan ognahay safaaradooda hadalka intaasaan ku soo gabagabeynaya anigu salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh oo ku dhintay sabab la'aanta waxa weeye ilaahay weyna waaxid ah naga samar siiyo bedelkooda qeyr qabana Allah na siiyo inta kadib aniga magacaygu uga
gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose xagga amniga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markii hore waxaan ka tacsiyadeynaynaa runtii dhacdadan xanuunka badan ee ku dhacday dadkan shacabka ah ee beeraleyda ah ee iyagoo jooga guryahoodii lagu weeraray intaa kadib tacsidan kadib ka maamul ahaan annagu waxaan caddaynaynaa dadkaas la laayey inaanay ahayn shabaab inaanay ahayn dad oo dhibaato waday inay ahaayeen dad shacab ah oo beertoodii loogu tegey laguna laayey intaan caddaynaynaa waa intaa ma aha beel keliya soomaali oo dhan bay isugu jiraan waa dad dulmalayaal ah waa dad lagu laayey runtii si khalad ah oo gardarro ah oo caddaan ah ciddii falkaa fulisay iyada ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta haddii alla idmo waana lala xisaabtamayaa biidnillaah haddana waxaan ku wareejinayaa odayaashan beelaha soomaaliyeed ka jooga oo dhibanayaasha odayaasha u ah in ay ka hadlaan arrinta waa la yaqaanaa ciidamada meesha joogay waxay ahaayeen ciidamada caddaanka ee bangraft ayay ahaayeen ama shirkad ha ahaadeen ama ciidan dawla ha ahaadeen laakiin cidda falka fulisay waa bangraft waa ciidamadii beriire ku sugnaa dagaal maaha waddo maaha yacnii waa dad goobtii ay joogeen qaarkoodna jiifeen qaarkoodna soo jeedeen loogu tegoo lagu laayay marka hore waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadkan ay guryahooda ka dhinteen waa dad Soomaaliyeed oo si gardarro ah lagu laayay si qaas waxaan ugu tacsiyeenaynaa dadkii guryahooda ay ka dhinteen waxaan kale uga tacsiyeenayaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaatada naxdinta leh loo geystay shacabkoodii beeraleyda ah waxaan halkan ka sheegaynaa dadkan halka meedkoodu yaallo oo ah 10 qof si gardarro ayaa loogu laayay beerahoodii waxay ahayn dad beeraley ah waxay ahayn dad xoogsataa waxaa laayay ciidamo sababta ay u laayeen aanan garanayn dalka ma ahan dal la heesto dalku dawladda ka dhisan waxaan leenahay baarlamaan waxaan leenahay xukuumad gole wasiiro waxaan leenahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ciidamada ay adeegsadaan oo kaashadaan oo dawladda Soomaaliya amni ay noo sugayaan ay u hayaan oo u kaashadaan waxay horay maalin kasta laayaan dadka Soomaaliyeed ciidamada ama Soomaaliya kamida intaasoo qaybood oo diiwaanka ku jirta oo lahaayo oo og yihiin oo hayaan Soomaaliyeed oo baabuur saaran oo caana gadanaya oo aroosaya ay laayeen hadda dhacdada ugu dambeeyay
oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmaynayay ciidamada Soomaaliya xoog gacanta u siinayay oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad Soomaaliyeed oo carruur isugu jira iyo odayaal oo beeraley ah oo aan waxba galabsan ayay laayeen waxaan rabnaa inaan dawladda Soomaaliyeed u sheegno waxaan rabnaa inaan ciidamada AMISOM u sheegno waxaan rabnaa kuwa Bangaraaft leeyahay caddaanka inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed uma dul qaadan karo maalin kasta inaad laydaan inaad tiraahaan waxbaan idin sugaynaa ee dhacda shaqadiinu noqoto istiriya meeqa ka dhimatay kuwa aan la diriraynaa hoon cadawga u naqan meeqay dilaan annagana meeqaan dilay saasaan u qaadanayna uma qaadanayno inaad maslaxad noo haydaan mana u qaadanayno inaad maslaxad nooga shaqaynaysaan waxaan rabnaa inaan lagu kahdoomin wixii hadda ka dambeeya dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dalka dawlad ayaga u ah baarlamaan ayaa jooga shacabkii Soomaaliyeed waa la dhameeyay meesha gadaashayda 10 qof oo waxa yaala carruur 3 carruur oo saqiira ka mid tahay waad u jeediin waxaan rabnaa in arrinta tilaab laga qaado ma duugayno ma xabaalayno faranjeeraan gelinayna ilaaha arrintaad ciddii geysatay ay qaadato mas'uuliyadda dhibaatada halkaa ka dhacday oo meel la saaro ma duugayno ma la duugayo waxaa loo bartay dadka Soomaaliyeed in la laayo laga tago wixii maanta ka dambeeya waxaan rabnaa lama lay doono dadka Soomaaliyeed xisaabaan noo furan faranjeeraan ku aruurinaynaa dawladda Soomaaliyeed ilaa ay soo taagto ciddii mas'uuliyaddan lahayd oo xuquuqdan bixi lahayd oo qaladkan gashay ilaa la soo taagana lama xabaalayo war soo saas maaha lama xabaalayo waxaan rabnaa xuquuqdooda dambigan ciddii gashay in lagu qaado ma ahayn dad dagaalamaya ma beeraley bay ahaayeen in lagu xalaalaysto dadkeenna beeray dhex joogeen waa ku kahdoonnay gaalkacyay ka dhacday hadda kahor ka dhacdoo lagu laayay maalin kasta dad Soomaaliyeed oo ujeeddadooda aynaan garanayn inay dadkeenna iyo shacabkeenna ku hogaanshaan ciidamo adnabiya oon kala aqoon dadka Soomaaliyeed oo inta beer u sheegaan ay yiraahaan cadow baa halkan jooga uma dul qaadanayno maalin kasta in lagu masabito ciidamada adnabiga uma dul qaadanayno waa dhacdadii saddexaad oo lagu yiri waa ciidamo cadow ah halkan fadhiya marka waxaan rabnaa arrinta iyada ah wixii maanta ka dambeeya wax loo dul qaadanayo maahan meedkana lama xabaalayo ilaa xuquuqdoodii meel la saaro aadaad u mahadsantihiin waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan uga tacsiyeenayo xasuuqa foosha xun oo ka dhacay xalay tuulada Bariire beer ku dhow oo lagu xasuuqay ummad Soomaaliyeed oo waayeel iyo saqiiro iyo dhalinyaraba isugu jirta dadkaasoo hadda meydadkooda halkan yaaliin oo dad Soomaaliyeed ah gacmaha gardarrada lagu geystay oo dadka lagu xasuuqay waxa iska lahaa ciidamo wata calaamadda Mareykanka laakiin waxaan leenahay mas'uuliyadda arrintaani waxay u taallaa dawladda Soomaaliya maxaa yeelay dal xor ah waxa dadkan ku dhacay kama dhacaan in ciidan ajnabi yihi degmaduu rabo iyo tuuladuu rabo iyo beertuu rabo cidduu doono ku dilo kama dhacdo dal xora wax dal xora ka dhaca maahan dawladda Soomaaliyana dalka in la haysto ma sheegina dalku inuu madax bannaan yahay iyaduna dawlad u tahay noo sheegtay mas'uuliyadda arrintan 85% waxa qaadanaysa ama 95 dawladda Soomaaliya waxaana lagu fadhiyaa ayada meydkuna meeshuu yaalaa sida odayaashu u sheegeenna ma laga qaadayo mana la xabaalayo ilaa jawaab ummadda Soomaaliyeed gardarradan iyo xasuuqaani ku dhacay qancisa ay ka timaado dawladda Soomaaliya waxaan leenahay dhagihiina fura ummadda Soomaaliyeedna adinka idin kula xisaabtamaysa waxa meesha ka dhacay aakhire iyo adduunna adinka la idin kula xisaabtamaya labadaba markii mas'uuliyad baad u qaadeen ummadan waxa loogu xadgudbayna waa dadka aad mas'uuliyadda u qaadeen cidda ku xadgudubtana waa cidda adinku keenteen oo kaashanayseen waxaan leenahay arrintaas adinka idin taala madaxda qaranka ha maqleen adinka jawaabta la idinka sugayaa meydkuna banaanka idin yaala Mareykanka safaaradooda waxaan leenahay gardarradaas aad samaynaysaan waxba kuma gaaraysaan iska daaya waana la gaarsiiyay sidaan ognahay safaaradooda hadalka intaasaan ku soo gabagabeynaya anigu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo ku dhintay sabab la'aanta
waxa weeye ilaahay weyna waaxid ah naga samar siiyo bedelkooda qeyr qabana Allah na siiyo inta kadib aniga magacaygu uga gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose xagga amniga inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markii hore waxaan ka tacsiyadeynaynaa runtii dhacdadan xanuunka badan ee ku dhacday dadkan shacabka ah ee beeraleyda ah ee iyagoo jooga guryahoodii lagu weeraray intaa kadib tacsidan kadib ka maamul ahaan annagu waxaan caddaynaynaa dadkaas la laayey inaanay ahayn shabaab inaanay ahayn dad oo dhibaato waday inay ahaayeen dad shacab ah oo beertoodii loogu tegey laguna laayey intaan caddaynaynaa waa intaa ma aha beel keliya Soomaali oo dhan bay isugu jiraan waa dad dulmalayaal ah waa dad lagu laayey runtii si khalad ah oo gardarro ah oo caddaan ah ciddii falkaa fulisay iyada ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta haddii alla idmo waana lala xisaabtamayaa biidnillaah haddana waxaan ku wareejinayaa odayaashan beelaha Soomaaliyeed ka jooga oo dhibanayaasha odayaasha u ah in ay ka hadlaan arrinta
waa la yaqaanaa ciidamada meesha joogay waxay ahaayeen ciidamada caddaanka ee bangraft ayay ahaayeen ama shirkad ha ahaadeen ama ciidan dawla ha ahaadeen laakiin cidda falka fulisay waa bangraft waa ciidamadii beriire ku sugnaa dagaal maaha waddo maaha yacnii waa dad goobtii ay joogeen qaarkoodna jiifeen qaarkoodna soo jeedeen loogu tegoo lagu laayay marka hore waxaan leeyahay inna lilaahi wa inna ilaahi raajicuun dadkan ay guryahooda ka dhinteen waa dad Soomaaliyeed oo si gardarro ah lagu laayay si qaas waxaan ugu tacsiyeenaynaa dadkii guryahooda ay ka dhinteen waxaan kale uga tacsiyeenayaa dadka Soomaaliyeed oo dhibaatada naxdinta leh loo geystay shacabkoodii beeraleyda ah waxaan halkan ka sheegaynaa dadkan halkaa meydkoodu yaallo oo ah 10 qof si gardarro ayaa loogu laayay beerahoodii waxay ahayn dad beeraley ah waxay ahayn dad xoogsataa waxaa laayay ciidamo sababta ay u laayeen aanan garanayn dalka ma ahan dal la heesto dalku dawladda ka dhisan waxaan leenahay baarlamaan waxaan leenahay xukuumad gole wasiiro waxaan leenahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ciidamada ay adeegsadaan oo kaashadaan oo dawladda Soomaaliya amni ay noo sugayaan ay u hayaan oo u kaashadaan waxay horay maalin kasta laayaan dadka Soomaaliyeed ciidamada ama Soomaaliya kamida intaasoo qaybood oo diiwaanka ku jirta oo lahaayo oo og yihiin oo hayaan Soomaaliyeed oo baabuur saaran oo caana gadanaya oo aroosaya ay laayeen hadda dhacdada ugu dambayday oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmeynayay ciidamada Soomaaliya xoog gacanta u siinayay oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad Soomaaliyeed oo carruur isugu jira iyo odayaal oo beeraley ah oo aan waxba galabsan ayay laayeen waxaan rabnaa inaan dawladda Soomaaliyeed u sheegno waxaan rabnaa inaan ciidamada AMISOM u sheegno waxaan rabnaa kuwa bangraft leeyahay caddaanka inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed uma dul qaadan karo maalin kasta inaad laydaan inaad tiraahaan waxbaan idin sugaynaa ee dhacda shaqadiinu noqoto istiriya meeqa ka dhimatay kuwa aan la diriraynaa oo cadawga u naqan meeqay dilaan annagana meeqaan dilay saasaan u qaadanayno uma qaadanayno inaad maslaxad noo haydaan mana u qaadanayno inaad maslaxad nooga shaqaynaysaan waxaan rabnaa inaan lagu kahdoomin wixii hadda ka dambeeya dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dalka dawlad ayaga u ah baarlamaan ayaa jooga shacabkii Soomaaliyeed waa la dhameeyay meesha gadaashayda 10 qof oo waxa yaala carruur 3 carruur oo saqiira ka mid tahay waad u jeediin waxaan rabnaa in arrintaa tilaab laga qaado ma duugayno ma xabaalayno faranjeeraan gelinayna ilaaha arrintaad ciddii geysatay ay qaadato mas'uuliyadda dhibaatada halkaa ka dhacday oo meel la saaro ma duugayno ma la duugayo waxaa loo bartay dadka Soomaaliyeed in la laayo laga tago wixii maanta ka dambeeya waxaan rabnaa lama lay doono dadka Soomaaliyeed xisaabaan noo furan faranjeeraan ku aruurinaynaa dawladda Soomaaliyeed ilaa ay soo taagto ciddii mas'uuliyaddan lahayd oo xuquuqdan bixi lahayd oo qaladkan gashay ilaa la soo taagana lama xabaalayo war soo saas maaha lama xabaalayo waxaan rabnaa xuquuqdooda dambigan ciddii gashay in lagu qaado ma ahayn dad dagaalamaya ma beeraley bay ahaayeen in lagu xalaalaysto dadkeenna beeray dhex joogeen waa ku kahdoonnay gaalkacyay ka dhacday hadda ka hor ka dhacdoo lagu laayay maalin kasta dad Soomaaliyeed oo ujeeddadooda aynaan garanayn inay dadkeenna iyo shacabkeenna ku hogaanshaan ciidamo adnabiya oo kala aqoon dadka Soomaaliyeed oo inta beer u sheegaan ay yiraahdaan cadow baa halkan jooga uma dul qaadanayno maalin kasta in lagu masabito ciidamada adnabiga uma dul qaadanayno waa dhacdadii saddexaad oo lagu yiri waa ciidamo cadow ah halkan fadhiya marka waxaan rabnaa arrinta iyada ah wixii maanta ka dambeeya wax loo dul qaadanayo maahan meedkana lama xabaalayo ilaa xuquuqdoodii meel la saaro aadaad u mahadsantihiin ducuun
waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan uga tacsiyeenayo xasuuqa foosha xun oo ka dhacay xalay tuulada Bariire beer ku dhow oo lagu xasuuqay ummad Soomaaliyeed oo waayeel iyo saqayro iyo dhalinyaraba isugu jirta dadkaasoo hadda meydadkooda halkan yaaliin oo dad Soomaaliyeed ah gacmaha gardarrada lagu geystay oo dadka lagu xasuuqay waxa iska lahaa ciidamo wata calaamadda Mareykanka laakiin waxaan leenahay mas'uuliyadda arrintaani waxay u taallaa dawladda Soomaaliya maxaa yeelay dal xor ah waxa dadkan ku dhacay kama dhacaan in ciidan ajnabi yihi degmaduu rabo iyo tuuladuu rabo iyo beertuu rabo cidduu doono ku dilo kama dhacdo dal xora wax dal xora ka dhaca maahan dawladda Soomaaliyana dalka in la haysto ma sheegina dalku inuu madax bannaan yahay iyaduna dawlad u tahay noo sheegtay mas'uuliyadda arrintan 85% waxa qaadanaysa ama 95 dawladda Soomaaliya waxaana lagu fadhiyaa ayada meydkuna meeshuu yaalaa sida odayaashu u sheegeen ma laga qaadayo mana la xabaalayo ilaa jawaab ummadda Soomaaliyeed gardarradan iyo xasuuqaani ku dhacay qancisa ay ka timaado dawladda Soomaaliya waxaan leenahay dhagihiina fura ummadda Soomaaliyeedna adinka idin kula xisaabtamaysa waxa meesha ka dhacay aakhire iyo adduunna adinka la idin kula xisaabtamaya labadaba markee mas'uuliyad baad u qaadeen ummadan waxa loogu xadgudbayna waa dadka aad mas'uuliyadda u qaadeen cidda ku xadgudubtana waa cidda adinku keenteen oo kaashanayseen waxaan leenahay arrintaas adinka idin taala madaxda qaranka ha maqleen adinka jawaabta la idinka sugaya meydkuna banaanka idin yaala Mareykanka safaaradooda waxaan leenahay gardarradaas aad samaynaysaan waxba kuma gaaraysaan iska daaya waana la gaarsiiyay sida aan ognahay safaaradooda hadalka intaasaan ku soo gabagabeynaya anigu salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh oo ku dhintay sabab la'aanta waxa weeye ilaahay weyna waaxid ah naga samar siiyo bedelkooda qeyr qabana Allah na siiyo inta kadib aniga magacaygu uga
gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose xagga amniga innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun markii hore waxaan ka tacsiyadaynaynaa runtii dhacdadan xanuunka badan ee ku dhacday dadkan shacabka ah ee beeralayda ah ee iyagoo jooga guryahoodii lagu weeraray intaa kadib tacsidan kadib ka maamul ahaan annagu waxaan caddaynaynaa dadkaas la laayey inaanay ahayn shabaab inaanay ahayn dad oo dhibaato waday inay ahaayeen dad shacab ah oo beertoodii loogu tegey laguna laayey intaan caddaynaynaa waa intaa ma aha beel keliya soomaali oo dhan bay isugu jiraan waa dad dulmalayaal ah waa dad lagu laayey runtii si khalad ah oo gardarro ah oo caddaan ah ciddii falkaa fulisay iyada ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi doonta haddii alla idmo waana lala xisaabtamayaa biidnillaah haddana waxaan ku wareejinayaa odayaashan beelaha soomaaliyeed ka jooga oo dhibanayaasha odayaasha u ah in ay ka hadlaan arrinta waa la yaqaanaa ciidamada meesha joogay waxay ahaayeen ciidamada caddaanka ah ee bangraft ayay ahaayeen ama shirkad ha ahaadeen ama ciidan dowla ha ahaadeen laakiin cidda falka fulisay waa bangraft waa ciidamadii beriire ku sugnaa dagaal maaha waddo maaha yacnii waa dad goobtii ay joogeen qaarkoodna jiifeen qaarkoodna soo jeedeen loogu tegoo lagu laayay marka hore waxaan leeyahay innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun dadkan ay guryahooda ka dhinteen waa dad soomaaliyeed oo si gardarro ah lagu laayey si qaasa waxaan ugu tacsiyeynaynaa dadkii guryahooda ay ka dhinteen waxaan kaloo uga tacsiyeynayaa dadka soomaaliyeed oo dhibaatadan naxdinta leh loo geystay shacabkoodii beeralayda ahaa waxaan halkan ka sheegaynaa dadkan halkaa meydkoodu yaallo oo ah 10 qof si gardarra ayaa loogu laayay beerahoodii waxay ahayn dad beeraley ah waxay ahayn dad xoogsataa waxaa laayay ciidamo sababta ay u laayeen aanan garanayn dalka ma ahan dal la heesto dalku dawladda ka dhisan waxaan leenahay baarlamaan waxaan leenahay xukuumad gole wasiiro waxaan leenahay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare ciidamada ay adeegsadaan oo kaashadaan oo dawladda Soomaaliya amni ay noo sugayaan ay u hayaan oo u kaashadaan waxay horay maalin kasta laayaan dadka Soomaaliyeed ciidamada ama Soomaaliya kamida intaasoo qaybood oo diiwaanka ku jirta oo la haayo oo og yihiin oo hayaan Soomaaliyeed oo baabuur saaran oo caana gadanaya oo aroosaya ay laayeen hadda dhacdada ugu dambeeyay oo naxdinta leh ciidamadii caddaanka ahaa oo sida farsamaysan u kaalmeynayay ciidamada Soomaaliya xoog gacanta u siinayay oo dabcan ay ka kaashanayeen sida ay sheegayaan ay iyagu kaashanayeen waxay si bareera u laayeen dad Soomaaliyeed oo caruur isugu jira iyo odayaal oo beeraley ah oo aan waxba galabsan ayay laayeen waxaan rabnaa inaan dawladda Soomaaliyeed u sheegno waxaan rabnaa inaan ciidamada AMISOM u sheegno waxaan rabnaa kuwa bangraft leeyahay caddaanka inaan u sheegno dadka Soomaaliyeed uma dul qaadan karo maalin kasta inaad laydaan inaad tiraahaan waxbaan idin sugaynaa ee dhacda shaqadiinu noqoto istiriya meeqa ka dhimatay kuwa aan la diriraynaa oo cadawga u naqan meeqay dilaan annagana meeqaan dilay saasaan u qaadanayno uma qaadanayno inaad maslaxad noo haydaan mana u qaadanayno inaad maslaxad nooga shaqaynaysaan waxaan rabnaa inaan lagu kahdoomin wixii hadda ka dambeeya dawladda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa dalka dawlad ayaga u ah baarlamaan ayaa jooga shacabkii Soomaaliyeed waa la dhameeyay meesha gadaashayda 10 qof oo waxa yaala caruur 3 caruur oo saqiira ka mid tahay waad u jeediin waxaan rabnaa in arrinta tilaab laga qaado ma duugayno ma xabaalayno faranjeeraan gelinayna ilaaha arrintaad ciddii geysatay ay qaadato mas'uuliyadda dhibaatada halkaa ka dhacday oo meel la saaro ma duugayno ma la duugayo
waxaa loo bartay dadka soomaalida in la laayo laga tago wixii maanta ka dambeeya waxaan rabnaa lama lay doono dadka soomaalida xisaabaa noo furan faranjeeraan ku aruurinaynaa dawladda soomaaliyeed ilaa ay soo taagto ciddii mas-uuliyaddan lahayd oo xaquuqdan bixi lahayd oo qaladkan gashay ilaa la soo taagana lama xabaalaayo war soo saas ma aha lama xabaalaayo waxaan rabnaa xaquuqdooda dembigan ciddii gashay in lagu qaado ma ahayn dad dagaalamaya ma beeraley bay ahaayeen in lagu xalaalaysto dadkeenna beeray dhex joogeen waa ku kahdoonnay gaalkacyay ka dhacday hadda ka hor ka dhacdoo lagu laayay maalin kasta dad soomaaliyeed oo ujeeddadooda aynaan garanayn inay dadkeenna iyo shacabkeenna ku hoggaanshaan ciidamo adnebiya oon kala aqoon dadka soomaaliyeed oo inta beer u sheegaan ay yidhaahaan cadow baa halkan jooga uma dulqaadanayno maalin kasta inna lagu masabito ciidamada adnebiga uma dulqaadanayno waa dhacdadii saddexaad oo lagu yidhi waa ciidamo cadow ah halkan fadhiya marka waxaan rabnaa arrintaa iyada ah wixii maanta ka dambeeya wax loo dulqaadanayo ma ahan meydkana lama xabaalayo ilaa xaquuqdoodii meel la saaro aadaad u mahadsan tihiin waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed waan uga tacsiyeenayo xasuuqa foosha xun oo ka dhacay xalay tuulada Bariire beer ku dhow oo lagu xasuuqay ummad Soomaaliyeed oo waayeel iyo saqiiro iyo dhalinyaraba isugu jirta dadkaasoo hadda meydadkooda halkan yaaliin oo dad Soomaaliyeed ah gacmaha gardarrada lagu geystay oo dadka lagu xasuuqay waxa iska lahaa ciidamo wata calaamadda Mareykanka laakiin waxaan leenahay mas'uuliyadda arrintaani waxay u taallaa dawladda Soomaaliya maxaa yeelay dal xor ah waxa dadkan ku dhacay kama dhacaan in ciidan ajnabi yihi degmaduu rabo iyo tuuladuu rabo iyo beertuu rabo cidduu doono ku dilo kama dhacdo dal xora wax dal xora ka dhaca maahan dawladda Soomaaliyana dalka in la haysto ma sheegin dalku inuu madax bannaan yahay iyaduna dawlad u tahay noo sheegtay mas'uuliyadda arrintan 85% waxa qaadanaysa ama 95 dawladda Soomaaliya waxaana lagu fadhiyaa ayada meydkuna meeshuu yaallaa sida odayaashu u sheegeenna ma laga qaadayo mana la xabaalayo ilaa jawaab ummadda Soomaaliyeed gardarradan iyo xasuuqaani ku dhacay qancisa ay ka timaado dawladda Soomaaliya waxaan leenahay dhagihiina fura ummadda Soomaaliyeedna adinka idin kula xisaabtamaysa waxa meesha ka dhacay aakhire iyo adduunna adinka la idin kula xisaabtamaya labadaba markee mas'uuliyad baad u qaadeen ummaddan waxa loogu xadgudbayna waa dadka aad mas'uuliyadda u qaadeen cidda ku xadgudubtana waa cidda adinku keenteen oo kaashanayseen waxaan leenahay arrintaas adinka idin taallaa madaxda qaranka ha maqleen adinka jawaabta la idinka sugayaa meydkuna bannaanka idin yaallaa Mareykanka safaaradooda waxaan leenahay gardarradaas aad samaynaysaan waxba kuma gaaraysaan iska daaya waana la gaarsiiyay sida aan ognahay safaaradooda hadalka intaasaan ku soo gabagabanayaa anigu salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh oo ku dhintay sabab la'aanta waxa weeye ilaahay weyna waaxid ah naga samar siiyo bedelkooda qeyr qabana Allah na siiyo inta kadib aniga magacaygu uga